السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحا أن نوغا برتين تدوبات كستي أو نيغا سوغلو تيفيغا سهن إنان إني برنامج أني داديهنو آدي آد وحيسا بدن بلشدون أين لو ذاكتو waxaan leenahay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku bilaabanaa bisinka waxaa caawa martiila ah oo ila jooga oo mar waliba ila daadihin jiray barnaamijyada xasan sheekh xareed oon in badan hawada ku kala maqnayn amba ku kala maqnayn sahan tv iyo baraha bulshadaba waxaan leenahay xasan soo dhawow waxaan jecelahay inaan in badanba aan kala maqnayn barnaamijkan aan ku kala maqnayn fasax awgeed anigana aan ku jiray adiguna aad sii wada shaqada oo hawsha ku sii jirtay dadaalka aad ugu jirtid ummadda reer Djibouti soo dhawow xasan sheer madashuna way ku furan tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن دوهي وأنا سلام يا دتك نداونا وإسكر على نقدنا دي بدعاسي فرسمين ويرد عيمان عاوة وأنا سلام يا سود دوادنا goob walba iyo goob kastaba ku xidhna uu telefishinka caalamiga ee Sahan TV uguna kaalay warar hufan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسكاكو بلابينا وحان لنا إلهي وحان كبرينا إنو وحي عن علوشي دي كجران وحي عن أمد ودنو إنان daacaduna hay oon barnaamijka aan uga daadihinayno sahan tv-na uu yahay barnaamij aad u ballaaran bulshaduna aynay la wadaagto waxaan leenahay xasan qurbajoog iyo qolqoljoogba waa lagu dhageysanayaa xasan sheer in waliba barnaamijyadaada iyo maad aragtay su-aalaha ummadda aad usoo gudbisid in walla ay ummaddu ay aad iyo aad ugu dirsadaan bulaha bulshadana maad aragtay wax badan aad uga faa'iidaysid reer Djibouti oo dhan hadday joogaan dibad iyo hadday joogaan gudaba xasan waxaan ku bilaabaynaa kulleyba marxalado aad u dhib badan baa jira Djibouti waqtiyadan dambe oo waxaa lagu jira doorashooyin aan cidbo ogeyn amba maad aragtay loo qababaalayo ummadda reer Djiboutina ay doorashadaasi ay aad iyo aad bulshada Djibouti oo dhan ay u diidayaan inay doorasho dalka ka dhacdo sideed u aragtaa xasan barnaamijka caawa aad ila wadaagaysid ila daadihinaysid arrimahan uu soo diyaariyay in Umar Geele ninkan uu ka dhigay directorada company-ga Sabate bal sidee kuugu muuqataa bulshadana maxaa la wadaagaysaa arrimahaasi aad iyo aad u cakiran waad salaamantiin bulshadana dhageysanaysaa waxaan la wadaagayaa horta waa run doorasho ayuu Ismaaciil Cumar sheegayaa inuu doorashooyin qabanayo uu sheegayaa laakiin anagu ilaa mar horeba anagii hore u sheegnay Ismaaciil Cumar ma jiro mana soo noqonayo dadka asugina baan niri doorasho inta ka dhacday Djibouti inay ka dhacdo oo Ismaaciil Cumar doorasho qabto oo yiraahdo waan ku guuleystay oo waan badiyana ma dhacaysa taasi ku talagala halku wuxuu doonana sameeyo Ismaaciil uu soconaya hadduu maanta halka intuu galgashay ciidda galgashana uu soconaya oo taa horaan igu sheegnay taa waxaan iga daliilana carab ku dhawaaqo horaan u dhali ilaa maanta uu ku dhawaaqi kar laayahay waad aragteen oo wax official ma soo saarin wuxuu halkan noo soo dhigay sabatiya gabatiya koox aynkaas uu noo soo ururiyay oo maxay ahayd shafiica uu noo soo wada ururiyay uu gabatiya sabatiya wax la yiraahdo soo ururiyay uu warqada u dhiibay intuu iska soo taswiiray uu Facebook soo dhigay de waxa weeyaan waxaanu sabato u dhiibay gabatiya u dhiibay ma garanayno waxa yihiin anagu warqada u dhiibay waa la arkayay anagu sawirkaana anagu noo soo dirayo waan ka guddoonay Ismaaciil oo sawirkaana waad ku mahadsan tahay waxa weeyaan waxba dadka daalin waan iska garanaynaa waxaan malaawa ciyaal waxa weeyaan waa sidii madaxweyne dhan oo sidii ubadka u ciyaaraya weeyaan sidii ubadkana u ciyaar maxay u galgalanaya marka ilmo yar baad moodaa oo xintamayaad moodaa ninkani ma hayo awood uu ku soo ku dhawaaqo uu yiraahdo waan ku soo noqonayaa mar shanaad ma hayo waad aragteen xafladaha lagu qabtay RBB-yada maalmahan ba xaflada lagu qabanayay xafladahaasi waxa ku qoran waad aragteen maxay ahayd Carandesium anniversaire maxay ahayd xafladii dabaaldegii 24 maxay ahayd 24aad ururkeena ku qoran kuma qorno doorashada Ismaaciil Cumar iyo waxa kuma qorno hadda dib u raacdiin doorashooyinkii hore waxa ku qornaa waad garanaysiin boorarka Ismaaciil Cumar iyo sawiro waaweyn baa magaalada ku lagu dhadhajo Ismaaciil Cumar 2006 baa ku qornaa 2016 ka ku qornaa 2016 ama suu fahmay ayaa ku qornaa laakiin maanta waad aragteen waa wixii oo dhan balaa waxba kama jiraan sawir laga qaaday oo Facebook la soo dhigo oo gabatay iyo sabatay mid la yiraahdo ma garanayo meelaha ka soo qaado shafeeca
iyo warqada u dhigay wasaaradda arrimaha gudaha ka yiri muxuu ahaa de taasi waxa weeyaan candidature wax halku geeyay iyo wuxuu sameeyay iyo waxay tahay lama garanayo warqadahan inay yihiin warqada jaga lagu siinayay gabatay iyo sabatay ninka la yiraahdo ma garanayo waxaan kaas leeyahay aduna warsh jaga lagu siinayna garan mayno jaga uu ku yahay waxa weeyaan Ismaaciilow iska daa umada daalinaysid iyo wadankaad ku ciyaaraysid baan leenahay cid ku haysato qori madaxa kaaga haysay ma jirto maxaad la gagabanaysanayno waxa weeyaan banaanka u soo bax oo waa kaadhe maxay hayday doorashada mar shanaad baan ku soo noqonayaa waa kaan anaana maxay musharaxa caadi u dhow banaanka u soo dhigo waxbana dadka daalinin marka waxa kama jiraan baan inuu leeyahay dadka reer Djibouti inuu ninkan daalinin inuu nin waalina kaar voota doonatina kaar voota doonatina inuu jirin oo isku daalinina wax kaar voota doonanaysiina ma jiro isku daalina vote ma dhacayo Ismaaciil Umar Xaniiniye male uu yiraahdo waan soo baxay waa ka waa la doortay oranayo inay Afrikaanigi ma jiraan oo inay Europeanigi ma jiraan waxa soo dhani ma jiraan anaa haya waa dargam baasho uu iska socon doona mar dhawaad socon waayeen oo nabad ku socon waayeen xabad buu ku socon hadal male wax la isbaryayana ma jiro meesha aad baad u mahadsantahay xasan sheekh xareed adigoo kaaga mahad celinayo intaad barnaamijka la wadaagaysid bulshada Djibouti meel wali joogaan dibad iyo gudaba waxaan ku sii soconaynaa barnaamijkeenii iyo su'aalaheennii xasan sheekh okay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo oo su'aalihii aan sii guda galo waxaa jira dhalinyaro badan oo reer Djibouti oo dalka gudihiisa jooga oo aad iyo aad loogu qasbayo maaragtay kaarashii votka amba kaar elector wax la yiraahdo in dhalinyaradii lagu qasbayo oo dad badan ma aragtay dib badan ka haysato arrintaasi ummadda maxaa la wadaagay arrintaasina ma wax cadba oo dadka reer Djibouti kaarkan dadka lagu qasbay muxuu yahay bal ummadda la wadaag xasan sheekh xareed adigoo mahadsan waxa waad maasanta xasan waxa weeyaan horta waxaan taa ka yaroreysiini dad badan baa waxay soo qoray arrimay weydiiyay ku saabsan halka Swiss-ka ka dhacay marka sidaad ogtiin xeerka qofka dacwad digtay kaba hadli karo oo xeer u malin banaanka soo dhigo wax dhacay way jiraan oo maxayday uu soo maleegay Ismaaciil Umar arrimo male Ismaaciil Umar uu soo maleegay way jiraan laakiin uu guud daraystay Ismaaciil Umar arrimi uu maleegay lacag xoog lana uu galiyay isagana ku noqotay kubadii de waxaan leenahay Ismaaciil Umar ama dhagax soo adeegsa ama jareer soo adeegso ama hindi soo adeegso waxaas waad iska daali baan ka leenahay waad ku daali maxay hayday qolada adeegsanaysiin gudun baad ku guraysaa waxaan leenahayna maxay hayday anagu walaa dhagax soo dirtid walaa maxay hayday hindi aad soo dirtid midna kuma daalayno anagu iyo daba gali mayno anaga kolba meel waxaan ugu turturin ciyalka jahilka waxa uu samee waxa weeyaan anagu waxay wadanka baabiye iyo umada Djibouti weerar ku hayay waa Bahfur Labe waxa weeyaan way dhowdahayna baashu waxaan leenahay Bahfur Labe iska sii guurayo Bogo magaalo la yiraahdo oo ku taala maxay hayday Ivory Coast Cote d'Ivoire ku taala ayaad u guuraysiin halka baan ilii diyaariyay iska sii guuraan leenahay hadii kale sida reer Bani Israel baad 5 kun oo sare wareegi doontiin gaafaha adduunka wareegaysiin baan leenahay Bahfur Labe anagu waxaan haysanaa waa Bahfur Labe magaran waxa maleegayna waa Bahfur Labe dhibaatada waxa maleegaysana waa iyaga waxa dhibto dhan ka dambeeya waa iyaga Ismaaciil waa kuwa kula maadeerka iyo adiga baa ku daalin anaga kulba dhagax iyo waxana ku daalin iyo hindi iyo balaayi iyo waxaad wadwadido dhan waxaad maleegayso dhan wareeg anagu ninka gadaasha fadhiya waxaan ka dambeeyo dhan waan garanaynaa waana jawaabteedana waa lagu siin doonaa ina la ooyin hadhow aad baad u mahadsantahay adigoo su'aashii kale ayaa lagaaga fadhiyaa yes su'aashii kale haddaan u noqdo waxa bilaabmay maalmahani ii sheeg inaan la yiraahdo dhalintii laga yiraahdo waxaad sameynaysiin isku kaalay oo loo yeero 10 iyo 20 loogu yeero dhalinyarada ciyaalka waliba dhalinta xaafadaha ka dhex muuqda in loo yeero oo la yiraahdo kaarkii ninkiiba keenay 20 ilaa 30 dhalinyarada keena muxuu ahaa waxa weeyaan waxaad sameeysiin Oscar-ka soo qaata doosiye baan laga qaaday shaqaan ila geyni waxaankaas la bilaabay arinta ugu balaaran waxa ka dhacday Cali Sabiix bay ka dhacday oo ii sheeg muxuu ahaa Umar Axmed Wacays ninka la yiraahdo komisaarka meesha ayaa guriga beerta weyn ee komisaarka Cali Sabiix iskugu yeeray dadkii dhalinyaro badan halka buu kaga yidhi dhalinyaradii kaararkii soo qaata votka ninkii kaarka votka noo keenana waxba la qaban doonaa
dhalinta kalena u sheega waxbaan ila qabanaynaa baa la yidhi waxay isweydiin maxay ahayday makaar vote baa dadka wadani ay ku yihiin oo ay xaqooga wadanka ay ku leeyihiin ay ku helaan makaar vote ba iyo maxay qofku shaqo inuu helo kaar vote baa loo baahan yahay wadankiisa uu joogo si shaqo uu ugu helo makaar vote baa loo baahan yahay muxuu ahaa ma waxa loo baahan yahay waxa loo baahan kaar vote si uu qofku xaqiisa u helo wadankiisa waxaan leenahay dhalinyarada war waxa maqlin waxba kama jiraan waad ogeydeen inaa maalmo dhaweyd la iskugu yeedhay 5,000 oo dhalinyaro ah meel loogu yeedhay maalintii dambana aad aragteen fiidiyoyada halkaan niiga soo gelinay oo daawateen shahaadooyinkoodii iyo dibloomyadoodii iyo wixii ay koobiga ka waxeeyeen oo dhan oo qashinka lagu guray inaad daawateen markaas waxa weeyaan inaan niliwaalin baan anagu leenahay waxba kama jiraan waxaasi ama kaarad qaadatiinna waxba ma bedelayo waxbana ma soo biirinayo inaan niliwaalin kaarara doondoonina kuwa qaatayna googooyo qashinka ugu gura waxaan arkay sidii maxay hayday qofka xabsiga ku jira Mareykanka xabsiga la gelinay la qabtay dambiilaha waxa loo dhiibaa kaar baa loo dhiibaayo board baa loo dhiibaa lambar ku qoran saa loo joojiyo waa la sawiraa sidii oo kale yaan arkay marka qofka waxa loo dhiibaa board baa loo dhiibaa uu ku yaalo lambar oo sida loo hordhigaa oo la yiraahdo is hordhig marka la sawirayo qofka dambiilaha Mareykanka sidii oo kale aan arkay dhalinyaradii oo qaar RBB-da aaminsan oo Ismaaciil Cumar u haystaba ilaah ina kaararkii is hordhiga la yidho saa isku hordhiga sidii kitaabka quraanka isku hordhiga la yidho ashaa markuu qofka ashaadan Allahu akbar uu leeyahay uu kaarka iyo kitaabkiisa saa u dhuli jiray kaarkii baa looga dhigay kitaabo sida uu la yidhi oo kaarkiisa Ismaaciil Cumar waa la sawiraa dadkii Facebook wada dhiga laga dhalinyaradii kii dhiga ku furan baa la siiyaa waxaan kaasa la bilaabo saqajan aan kaasa maxaa faa'iido ugu jira war waxan waxba kama jiraan waxan waa lagu daalinayaa qolo aanan la socon waxan baan daalinaysa marka maxay yahay group company la sameeyay iyo waxan oo dhan lama socdaan waxa socda ninkan Ismaaciil Cumar been uma sheegay dadka waxa haysta isagu intuu soo baxo hadla yiraahdo waan ku noqonayaa marshad waan ku noqonayaa cadaana uu yiraahdo je suis partant je suis assis waxaan kaas ku sheekeynayaan in lahayn waa naga hore inagu sheegnay markaas inuu nidaalin ayaan ku daalina ninkani kaarna ma doonaysiin dhalinyarada xal sabiix laga yiri Facebook soo dhigay intaad kaarka soo qaatiin taswiira oo Facebook isdhiga laba ku maanasiina war waxayna lagu daalin doqonnimada aan ka baxno 2,000 oo adoo gaajooda ku dhaanta 2,000 oo doqonnimo oo lagaaga ruwaaydeysanayo sawirkaasi Facebook weliga yaali doona ogaada sawirkaad maanta qaaday weligeed Facebook uu yaalaya waa wax adduunka dhex maraya waa ceebniga haraysa oo golaanina diida aad baad u mahadsantahay xasan sheer anagoo kusii soconnaa barnaamijkeenii bulshadana daawanaysa iyo intana daawad doontaan waxaan leenahay waxaad nagala soconaysiin barta facebooka iyo barta youtube-ka gadaal waxa aan kusii soconaynaa barnaamijkii intiisii kale anagoo dadka na daawanayana aan leenahay barnaamijku kulleyba inta dambe iyo inta horeba labadaba waxay suu leeyahay marka xasanow su-aashii labaad baan galaynaa arrintan xasanow xasaasiga ah ku saabsan arrimaha maad aragtay ee diasporaaga dibadda jooga wuu ku dhaqaaqay taliska in Cumar Geyle uu leeyahay dadkaasi dacwado iyo maad aragtay waxa lagu awdi doonaa amba lagu soo saari doonaa dacwado sida imka inay reer Djibouti yihiin oo kale dadka in Cumar ka soo horjeeda arrintaasi sideed u aragtaa xasan oo ummadda maxaa la wadaagaysaa arrintaasna waa arrin xasaasi ah arrintaasi xasanow tani diasporaha ayaa la daba galayaa oo arrin laga shaqeynaya la sameynaya way jirtay oo waxa imika ma waxa dhacay waa wax hore u dhacay waa kii xafladii lagu qabtay Holland baa laga bilaabay ahayd waa kii xafladda lagu qabtay Belgium ay ku hortageen muxuu ahaa Saciid Xuseen iyo koox badan oo isaga la socotay ay maalinta ku hortageen ragii qandaraaska la siiyay dadka meesha iskugu yeedhay ka ruwaydaysanayay halkaana lagu kala baabiyay marka waxaan u sheegaynaa arrintaasi inayna baabiin baan dadka ka wargelinaynaa oo waxaan helnay warar kale warar badan oo xasaasi aan helnay arrintaasi ma baabiin arrintaasi xaggee ka timiday waxa inaan dadka fahamsiino waxa weeyaan arrintani la wadayay waxa bixisay OIM-ta qolada la yiraahdo OIM-tu waxa weeyaan Organisation Internationale des Migrants ama International Organization of Migrants bay ahayd dadka maxay hayday tahriibayaasha ururka u qaabilsan ama laajiinta u qaabilsan adduunka ayaa arrintan samaysay waxay kala sheekeysatay wadanada loo soo tahriibo sida maxay loo soo haajiro sida Yurubadan Mareykanka wadano badan oo aynkaas ay dad laajiina badan joogaan baa lagala hadlay arrintaas oo la yiri waxa weeyaan waa inaan u fududeynaa dadkani jooga wadanadooda si ay dadkani waxbay barteen dhaqaalay sameeyeen si dhaqaalahoogan iyo waxbarashadoodan ay wax ugu biirin lahaayeen wadanadooda u gashan lahaayeen loo dhib yareeyo
oo alla sameeyo wadanadan inay kala sheekaystaan wadanada kale kasoo jeedaan dadku imika dadka reer Djibouti ee jooga dibadda si ay u fududeeyaan haddaan usoo qaadano muunadba dadka reer Djibouti ee dibadda jooga si ay Djibouti u maalgashan lahaayeen aqoontoodana wax ugu tari lahaayeen oo kale in Djibouti lagala sheekaysto marka wadanadii lagu bilaabay arrintaasi Burundi bay ahayd Burundi wax badan baa ka soo baxay Rwanda ku xigjiyaa jirtay wadano badan oo caynkaas oo Afrikada iyo Latin America ka faa'iideystay faa'iido badan kala kulmay baa jira oo Congo ba ahayd oo dadku wax badan ay furteen wax badan ay ka dhaqaajeen waxa jira nin u dhashay wadanka Rwanda oo ka samaystay arrintaasi mashruuc Rwanda ka waxeeyay qayb labaadna ka furay Mareykanka oo noqotay hay'ad shirkadii u furay shirkada caalamiga noqotay oo adduunka ka jirta marka programku wuxuu horumarin dhaqaale iyo aqoon iyo wax lamid ah inay dadkan ku kordhiyaan wixii ay iyagu biirsadeen dhulkan ay joogaan iyo jaamacadahan ay joogaan iyo wadanadan ay joogaan waxay ka biirsadeen inay dadkoogana wax ugu taraan baa ahayd oo loogu talagalay in la sameeyo qaab loo fududeeyo lacagta xawilaadda oo cashuurta laga yareeyo xawilaadda laga qaadayo dadka wax badan oo caynkaas ku dhex jiray tani Djibouti arrintaas way dalbatay oo waxay tiri waan rabnaa in la sameeyo way samaysay laakiinse umay samaynin muxuu ahaa sidii la doonayay waxay ka dhigtay wax laanta sirdoonku ay gacanta ku hayso oo la maamulo oo Idris Umar Geele ninkii loo dhan Ismaaciil Umar Geele la dhashay mid uu dhalay oo jooga wasaaradda maxay hayday arrimaha dibadda u fadhiya inuu ka daba shaqeeyo dadka iyo oo shaqo kale ma haye wixii de meesha joogay ka shaqeynayo ka shaqeeya dadku ka shaqeeya iyo loo xil saaray arrintaasi oo maxay hayday mas'uul inuu ka noqdo dabagalo qaar buu samaystay dibadda joogo iyaga ku xidhan oo u shaqeeyo lacag lagu siiyaa la samaystay arrinta waa la dhaqaajay sidaan sheegay hadeerna waa tii ku baabaaday Brussels marka wadanadaasi 2007 bay waxay isku tageen iminka maal 2007 bay shir fadhiisteen wadanadan maxay day dhaqaalaha leh ee dadku soo hajiraan iyo qaramada midoobay arrintaana waa laga sheekaystay marka waxa weeyaan muxuu ahaa arrintaasi aad bay faa'iido ugu noqon lahayd hadii loo ogolaado sababtoo ah waxay ahayd inay macal professoro jaamacada ka dhigaya ay wadanadooda jaamacada ka furi karaan ku xiran jaamacadahan kale iyo ahayd wax arrin aad u ballaaran oo fiican bay laakiin si ninka yar baa loo xil saaray Ismaaciil Maradeerka uu yahay ee ballaaran ee jooga maxay buuran ee jooga maxay wasaaradda arrimaha dibadda loo dhex fadhiya ee loo xil saaray inuu dadka ka shaqeeyo ka shaqeynaya wasaaradda arrimaha dibadda inuu ka shaqeeyo isagu uu dadka ka daba shaqeeyo loo sameeyay shaqo ka yima jirtay ayaa arrinta loo dhiibay rag dibaddana waa la samaystay marka waxaan arrintaasi maanta u soo qaadnay marar hore baan ka hadalnay waxaan u soo celinay waxaan ka wargelinaa dadka Belgiga jooga iyo dadka Canada jooga inaa faylal laga sameeyay waana sugaynaa inaa faylalka gacanta ku dhigno dibadda soo dhigno soo daabacno inaa laga sameeyay faylal ama doosiyayaal aynay ogaadaan weeyaan wixii ku dhiiban Soomaaliya wixii ku dhiiban Ethiopia wixii ku dhiiban Djibouti inaa sida loo kala saaray maxay hayday dad iyaga dhex joogan ay ka shaqeynayaan arrintaasi oo lacag lagu siiyo hadhowna la sameyn doono sidaan ku maqlay anu warkaan kaga helay gudaha ragu dhow arrintani inaa la sameyn doono inaa dadkaasi ninkii laga waayo ninkii caddayn waaye ee Facebooka soo fadhiisan waaye ama video yar iska soo duubi waayo dhigi waaye oran waaye Ismaaciil Umar waan taageersanahay inaa warqadihiisa loo soo diri doono laamahan maxay hayday qaxootiga si dadkaasi laamaha qaxootiga ay waxan u celiyaan oo dalkooda ugu celiyaan Djibouti loogu celiyo warqadahana looga qaado marka program caynkaas socdaan leenahay ee ogaada oo ka digtoonaada dadkaan leenahay inta wadana imika la dhameeyay ee la sameeyay waa waliba Belgiga iyo Canada la geliyay yaa la dhameeyay oo haya wadana kale wali ma hayno marka wixii nagu soo birana waa naga wargelinaynaa baash faylalkaana markay gacantayda soo galaan banaanka soo dhigi doonaa anagu oo waan ila qaybsani doonaa waana rajaynaynaa inaan mar dhow gacanta ku dhigno aragno faylalka oo dadkii magacdoodii ku qoran yihiin iyo qaabkii loo sameeyay insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo aad baad u mahadsantahay xasan sheer annagoo sii wadayna barnaamijkii dadka na daawanayana aan leenahay aad baad u mahadsantihiin intana daawanaysay intana daawan doonta haddaan nahay bahda Sahan TV waxaan ku soconaynaa xasan su'aalihii waxaan ku weydiinayaa xasan sheer waxaa jirta dalka Djibouti dhalinyaro badan waxaa jirta xasan oo mar dhaweyd shaqo abuur loo bilaabay dhalinyaradaasi shahaadadahoodii nin waliba shahaadadiisii iyo lisanskiisii nin waliba wuxuu haystay iyo meesha geeyay iyo warqadihiisii iyo CV-diisii waxaa dhacday xasan in warqadahooda ciyaalkoo dhan dariiqa lagu qubo dhalinyaradiina ay soo baxaan ay cawdaan ay yidhaahdeen shaqadii iyo wixiina noo sheegay aaway iyo doosiyegii aan dhignay kadibna waxaa loogu jawaabay markay soo baxeen ina xafiisyada dadka lagu xidho haddii booliiska tahay iyo haddii shadaarka tahay baa loo kala gudbiyo oo dhalinyaradoo dhan la guro
arrintaas xasanow dhalinyarada maxaad fariinta u diraysaa iyo reer Djibouti dhammaan meel wala joogaan waxaan leeyahay horta taasi waan ka hadalnay oo annagii arrintaas soo bandhignay way iska caddahay meeshan inuuna jirin maamul ka fikiraya dhalinyarada horumarkooga ama waddanka horumarkiisa inuuna meeshan joogin oo maamulka meeshani jooga waa la iska garanaya inuu yahay qawleysato marar hore waan ka hadalnay wuuna soconaya waqti yarba haddeed noo hadhay duceeya mar uu soconaya dadku inay isdiyaariyaan dhalinyaradu baan leeyahay sababtoo ah inaan xoog isku dhaafino afartan qawleysada inaan xoog isku dhaafino oo Ismaaciil Cumar uu maxayday hogaamiye kooxeedka ka yahay yaan xoog isku dhaafinaynaa waxaan leenahay waliba kuwa askarta ku jirana waxa weeyaan waa inaad fikirtiin tan maanta haysata shicibkiina inagana bari bayn haysanaysaa waad aragteen sidii dagaalka loo geliyay askarta maxayday Eritrea dagaal afka loo geliyay si loogu laayo inagana sidaan baan leeyahay doonaa marka waxaan leenahay dhalintaasi war kaarna doonanina vood dacayna ma jira isku daalanina xaafadiina iska fadhiya mar dhowna hadduu ilaahay yiraahdo fiiriga waa la isku afuufi doonaa maanta fiiriga la isku afuufana waan dhaafinaynaa Ismaaciil Umar wax alla wuxuu doonaa waxayo anoo nihaya uu soconaya cabsoonina dadkeen wuxuu doonaa kolba sawir iska soo qaado oo sabatiya gabatiya isku taswiiro warqada u dhiibo wuxuu doonaa sameeyo ninkaasi hadduuna cabsoonaynin waxaan nihaya intuu halkaas soo fadhiisto waa kii intuu jaraa'idka u yeero Janafriga iyo jaraa'idada kale odhanayay waan maxay hayday ummadda ay tiri dhaqaaqin waan joogayaa mar afraad baan ku noqon mar saddexaad baan ku noqonayaa waa kii oran jiray maanta waxa looga laayuu baraabaraada la hayo waxa weeyaan anaa nii hayo wax baan nii ogahay ninkan uu soconi doonaa hadduu soconi waayana waa nin iyo maxay cududii bay noqoni afarta bahfur lagu isku wareejinay badbaadiyaan waan arki doonaa badda lagu dari doonaa ka cabsona baddaan ku daraynaa maxay hayday talabaadna waxaan leeyahay dadka reer Djibouti waliba askartaan la hadlayaa waxaad noo soo tabinaysiin oo rabnaa inaad noo soo tabisiin magacda oo dhamaystiran iyo galoomada garaadka ama galoomada ragga askarta ku jira maxay hayday ofisiyaga maaha kuwa askarta caadiga ragga ofisiyaga reerka Ismaaciil marka kooban ama maasan ama bahfur laba inaad magacdooda iyo faylalka noo soo tabisiin dadkana dhageysanaya reer Djibouti baan doonaynaa magacdooda iyo maxay hayday galoomadooda iyo xerooyinkay joogaan sababtoo ah waxa la diyaarinayaa list raggaasi shaqa laga qaban doonaa aanay hayo waana nii sheegi doonaa markay wax soo dhamaadaan ee soo tabiya liisaskooga si banaankaan usoo dhigno nin kastaba uu ogaado maalintaana maxay hayday shaqo looga qabto waxa weeyaan cadowga inaa loo naxa maaha cadowga waa inaa ummadda la dhaafiyo inaa maxay hayday waa inaad ilowdiin reer Djibouti baan leeyahay ciise iyo in maadeere iyo waxaan ka bax waa cadow ummadiina aayihiina iyo aayaha ubadkiina khatar gelinaya waa inaan isdhaafinaa bilaa hadal cabsanina dalintana waxaan leeyahay diyaar garooba cabsanina diyaar garooba waan isku imanaynaa fiirigana waa la isku afuufi doonaa mar dhow wax uu yahayna waad arki doontiin waxaan aad u haysatiin Ismaaciil Umar wax yahayna waad arki doontiin baddaan ku dari doonaa ama au yeedho maxay day sniper iyo wuxuu doonayaa u yeedho uu bixi doonaa geeridu ninkii maxay day ninkii maxay day dhoofkiina de geeridu dhibaysaa baa la yiraahdaa dhulkaaga nin kaaga adkaan karay ma jiro taa ogaada maskaxdiina geliya wuxuu doonaa u yeedho Ismaaciil Umar nin naga adkaan karay Djibouti ma jiro taa ogaada marka dhalinta waxaan leeyahay yara samra isdiyaariyana waya xasan aad baad u maasan tahay barnaamijkana uu noo sii socdaa waxaan jecelahay su'aalo waxaan ku hayaa su'aalo yaro aad iyo aad maaragtay xasaasi waa ama dadku ay maaragtay ay ka boganayaan ayna jecel yihiin in lagu weydiiyo ummadana aad u sharaxid waxa weeye xasan waxa jira dhawaan Somaliland waxa jirta ciidamo halka laga keenayo bari oo la leeyahay caruur kacabsiis lagaga cabsiinayo dadka reer Djibouti oo la leeyahay ciidan ba halka laga keenaya sidii maaragtay dalka maaragtay quwadiisa iyo maaragtay ilaaladiisa u galaan arrintaasi miyana ku ahayn dib dalka Somaliland ciidamada la sheegayo hadda maaragtay afka lagu hayo sidee arrinta u dhacaysa oo ciidankaasi dalka Djibouti u soo gali doonaan waxa weeyaan way jiraan ciidamo imikadan ba lagu tababaro booliska Cabdilaahi Cabdiloo dhiibo tababaro aan ma garanaya doqonnimada ninka ku jirta ciyaalkii isagoo ah xaafadda lixaad ka teesiis ah doqonnimada ku jirta ninkaasi ma garanayo oo ummadiisa kula dagaalamayo waxa weeyaan way jiraan oo booliska lagu tababaro oo la yiraahdo wax loo tababarayo kuwa ciidanka lagu tababaro way jiraan waxaan anu de u arkaynaa inay tahay waxaan u tababaraynaa Somaliland laakiin waxna way iska hoos socdaan oo dabeecadda Ismaaciil Umar waan garanaynaa waxa weeyaan haddii ay de waxba la isku daali maayo hadalka lagu warwareegi maayo Somaliland waxa ciidankaasi ay waa isaaq dad kale maaha
waxaan leenahay hadduu dee uu Muuse Biixi uu leeyahay habar walow dagaal ku qaada ciise uu leeyahay isagan buu u daran tahay annaga waxba na yeeli mayso wuxuuna waxa la joogaa waa dalkaygii waa dhulkaygii waanigii hore uu yidhi geeridu nin dhoof ku yimid geeridu dhibaysaa waxa weeye dadkaana way ku maran doonaan dad walaala ana way ku kala guuri doonaan marka Ismaaciil Cumar waa shakhsi hadday Muuse Biixi iyo Isaaq ku daba dhimanayo Ismaaciil Cumar bay raacayaan hadday dadkii ay walaalaha ahaayeen xidid iyo walaal ay ahaayeen ay maxay ahayd ay ilaalinayaanna dee waa la wada noolaan waxna waa la wada qaybsan sidiina waa la wada ahaan marka anagu waxaan rajaynaynaa inay nala fahmaan oo arrinta Ismaaciil Cumar iska hadlaan ninkan waa munaafiq ummadu isku horgeeya ma inay faa'iido u hayo ma jiro waadiga arkay Muqdisho siduu bam ugu waalay uu baaba uga yeelay maanta wax ka galay ma jiro ma garanayo wax ka galay Soomaaliya hawiyo daarood buu madaxa isku gelinay oo masiibo dhex wadaa wuxuu ka dhaadhicinaya hawiyo inuu diidan yahay farmaajo muxuu ahaa iyuu iska dhaadhicinayaa uu hawiyo ka horgeynayaa dhinacan kalena wuxuu kala shirayaa rag maxay ahayd daarooda uu leeyahay iska dhaba marka masiibu wadaa uu dhex dhigayaa anigu waxaan leeyahay hawiyo daaroodona bal isku yar fiirsada Muqdisho inaana dabna dhex dhigin ninkaan dhex dhigin isku fiirsada oo inay illa uu ninkaasi waxaan jirin iyo masiibo aan jirin dhex dhigin waa kii 4.5 bana dhex dhigay ogeydeen ilaa imkanaad ka kici lahaydeen marka ninkan masiibo dadka uu ka shaqeeyaa faa'iido kama shaqeeyo marka waxaan leenahay reer Soomaaliland si waliba beesha Isaaq ee walaalahanahay waxaan leenahay inuu ninkaasi dab nagu gurin odayadooda iyo waxgaradkooga ka diga ummadiinana uga diga dhalintiinana uga diga annagu waan isdaafinayna hadduu ilaahay yiraahdo mar dhow waayahay xasan su-aashii waan kusii soconayaa xagga Somaliland waxa weeye Somaliland waxay ahayd wax badan inaan lagaga daydo oo wax badan baan kaga dayi jirnay xagga saxaafadda xagga maaragtay madax banaanida iyo xorriyadda ayaa lagaga dayin jiray oo qof muwaadina iyo qof maaragtay siyaasiya iyo qof maaragtay shakhsiyaba wuxuu u hadli jiray si madax banaan hadduu ka hadlo maaragtay jaraa'idka hadduu wax qoro iyo hadduu idaacadaha ka hadlaba waxay ahayd wax aad normal ahayd oo aad iyo aad loogu faraxsanaa oo waxa la oran jiray dimuqraadiyad bay ayay aad iyo aad ugu dhaqaaqeen amba meel wanaagsan bay joogaan laakiin hadda waxa aad u aragtaa xasanow waxaan kaa weydiinayaa waxaad u aragtaa waqtiyadan dambe inay Somaliland noqoto sidii Djibouti oo kale oo qof alla qofkii jaraa'id wax ku qora iyo qof alla qofkii baraha bulshada soo galaa ama maaragtay idaacad ka hadla in la qaado oo la xidho sidii Djibouti oo la dilo oo jeelasha maaragtay Somaliland aad u fara badan lagu kala xidho oo qofkaasna xargii oo maaragtay dambigii oo lagu oogin ama dambigii oo lagu qaadin ama maaragtay arrintii oo la dhameyn unbaa qofka la iska xidhayaa qofkaasna wuxuu ku xidhnaanayaa dambi la'aan marka arrintaasi ma u malaysaa inay siyaasaddaasi xagga Djibouti ka socoto ina dadka la caburiyeeyo kana dhanka Somaliland waayo maadaama ay yihiin dadkeenii dad xorriyad ku noolaa oo laakiin maanta godkii aan ku jirno iyo madaxii aan naga duubay iyo kana laga duubay arrintaas ayadu aragtaa xasan oo maxaad la wadaagaysaa dadka Soomaaliyeed haddii joogaan Somaliland iyo haddii Djibouti joogaanba waxa weeyaan horta Ismaaciil Cumar kama maqno qaska Somaliland oo wuxuu iskaga ka dhigayaa nin wanaag wada buu iskaga ka dhigayaa kama maqno waxa nihayaa arrin dhacday Djibouti markii uu Muuse Biixi yimid Djibouti markii dhaweyd uu yimid Muuse Biixi Djibouti waxa ku soo dhow aqalkiisa ku sameeyay xaflad qadaa ku sameeyay ninka ilmaadeerka yihiin Muuse Biixi ee leeyahay Maxamed Saciid Geedi Ismaaciil Maro shaqeeya Muuse Biixi uu diiday inuu tago waana taan uu ku fiican yahay Muuse Biixi inuu arrintaas ka diido sababtoo ah arrinta ninkaasi uu ku sameeyay qadada waxa ay isagii Muuse Biixi in la isku xidho ninkaana Ismaaciil Maro buu shaqeeya waxa lagu gelinaya dabin Muuse Biixi loogu dhigayay bay arrintaasi ilaa baa garansiyo uu diiday arrintaasi uu tagin waxa weeyaan ninkani balaaya daba socota balaayadana inaa Muuse Biixi lala galo oo Somaliland laga dhigtaa la doonaya sababtoo ah ciidankii Mareykanka iyo qarbigii ee joogay Djibouti aad bay u ilaaliyaan xeebaha Djibouti imika aad bay la socdaan waxyaabaha dhaqdhaqaaqa ka socda oo waad aragtay ninkii jandaarankii markii dhaweyd lagu dilay muxuu ahaa tajoorab waxa lagu dilay hubka ka gudbaya Djibouti buu daba galay ahayd waa la ogaaday markaana waa la dilay waxa loo maleynayay inuu Faransiiska u dirsaday arrintaa baa loo maleynayay ninkaasi marka wax badan bay ogaayuu yaa ka socda marka wuxuu doonayay Ismaaciil Cumar inuu xagga Somaliland u roro qoronkiisa uu la galo oo halka uu ku qarsado wixiisa marka ninkan u shaqeeyay Maxamed Saciid Geedi baa la doonayay isticmaalo ninkii Muuse Biixi iska diiday oo qoronkiisa uu diiday marka xaaladdu imika uu iska waxbuu fahmay Muuse Biixi waxa dhacay xagga kale ka wareegay Maxamed Saciid Geedi inuu ogeyn baan u maleynayaa Muuse Biixi
maxamed siciid geedi xagga kale ku wareegay faysal cali waraabana ma ogaanu maleen arrintaa waxa la iskaga dhigay nin tola inaa loogu tagay maxamed siciid geedi xagga faysal cali waraabe uu wareegay oo wuxuu u shubay 80,000 oo dollar buu u shubay faysal cali waraabe faysal cali waraaba kharash la gelinaya si dad badan baa iminka loola xiriiray faysal cali waraabe kharash loo gelinaya kharashkana Djibouti buu ka baxaa waxaana kharashka Muuse Biixi baalkii loo gelinaya faysal cali waraabe si loogu kiciyo Muuse Biixi waxa weeyaan ciro u diiday oo habaryoonisi way iska fahmaysaa filimkana way iska diiday marka haddii faysal cali waraabe ad dhinaca ka gashiin oo kicisiin waxa la leeyahay garxajiis oo dhan baa raaci doona oo habar waliga garxajiis baa la doon waxaan yaa la doonayaa in la isku geliyo madaxa arrintaa baa socotay iminka waxa dhacday Djibouti muxuu ahaa ciidagalihii iyo Djibouti loo yeeri jirin baa maanta loo yeeray oo la xasuustay ciidagalihii Djibouti la joogay yaa loo yeeray Djibouti baa loo yeeray waxa kamid ah Jaamac Ali Geele islaantiisa kamid ah oo Ismaaciil Jaamac Ali Geele Madharbi iyo Ismaaciil Umar waa in adeerkii haddana aqalka Haramuus Ismaaciil Umar u degan yahay Khadra Xaydi Ismaaciil Umar oo da fadhiya intay la u yeereen maxay hayday islaanta Jaamac Ali Geele wali lama kulmin maanta ugu horeyso ay la kulmeen ay u yeereen oo la kulmeen markaasi weligoodna lama kulmin waxaad moodaysaa xurgufnayna dhex taalay waxa loogu yeeray maanta waxa la doonayaa oo dhulka la isku dhigayo shaqadoodii weeyaan maxay yahay ciidagala dhulka la isku dhigayo oo la leeyahay walaalaha iyo waan ilowni waan khaldanay habar walba wax moodayn iniga ni soo jeesanay si waxa la doonayaa garxajiis oo dhan inta loo la dhex galo ina madaxa la isku galiyo Muuse Biixi loo galiyo garxajiis iyo la galiyo halka habar waliga garxajiis madaxa la isku galiyo la doonayaa waxa leena faysal cali waraabo hadii nimanka maqlayaan dadkiisa ama dadka u dhow arintaasi ka digtoonow iska ilaali wanaag kuma soo wado maxamed siciid geedi waa ismaaciil umar waxa soo diray wanaag kuma soo wadaan leenahay masiibada baa la maleegaya masiibada baa isaaqna loo maleegaya waa inay ka digtoonaadaan baan leenahay waa runtaada wax badan oo lagaga dayday iyo waagi hore wuxuu ahaa wadan inaan wax badan kaga dayan lahayn laakiinse meel ismaaciil ku dhex jiro qurun miyaa laga waayayaa qurun laga mooyo doofarma daahir dabeecadiina ma daayo meel ismaaciil ku jiro ma qurun be ma beelayso maxay heedayeen qas iyo qalaaso waa adiga arkay Soomaaliya oo dhan buu dhex dhigay masiibo ay maanta ka bixilaado 4.5 la yiraahdo Landeria la gaab Soomaaliya buu dhex dhigay arintaasi oo ma ka bixilay ilaa maanta markii horena wuxuu ku cadibay qarax iyo balaayiye bam inuu si al-shabaab umada mariyo yiraahdo ku cadibay waad iska arkaysaa hotel elite inuu ka dambeeyay isagu way cadaatay oo hadal kama jiro oo ninkii muxuu ahaa Idris loo oranayay sirdoonka Djibouti waa lagu daba jiraa waxa baaritaan xoog la ku socda ninka khatar buu ku jiraa wuxuu moodayaan iyagu dawlad baan oo badbaadina war ma badbaadaysiinay wadannada waaweyn baa dhulka la jiido meel ay mareen la leeyahay oo xabsiyaal 100 sano lagu xukumay marka waxa weeyaan waxaan leenahay reer Somaliland war arinta Ismaaciil Umar iskaga baxa siyaasiyiinta waxaan leenahay wax la'aan baan idhaanta Ismaaciil Umar iskaga baxa qas ma hayna faa'iido ma wado واي حسن واد ما سنتهي برنامجكنا oo ku sii socnaa anagoo barnaamijka socna bartankii waxaan jecelahay xasan inaan ku weydiiyo maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha Djibouti sababta la isku diidan yahay sababta ma aragtay loo kala maqan yahay maanta xurguftu ay ka dhaxayso maxaa xasan sababay in Umar iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo sababta maxamed cabdilaahi farmaajo uu uga baxsaday in Umar Geele uu yiri waa ninkani wuxuu dumiyay maahin waxba nooma soo wado arintaas seed u aragtaa maxaana ka dhaxeeyay xurgubtuna halkee ka timid arrintan baan soo dhaweynaynaa oo dadku waxay u macnaystaan horta Soomaaliya dhibaato ka jirto oo wax kastaba qabyaalad baa la galiyaa dadku qabyaalad baa u macnaystaan anuu ka qarin maayo waagii hore waxa dadkii farmaajo ka soo horjeeday laakiin anuu maanta waan taageersanahay arrinkiisa waxaan ku taageeranay wax kale ma waxaan waagii hore ku diidaan wax kale maayna markuu noo yimid uu yiri malag baad haysatiin oo Ismaaciil Umar waa malag horumar buu ni wada waxaan u arkay nin aan adduunka la socon oo iska dawaqsan baan arkay sidii madaxweynayaashii kale aan arkay laakiin kadib waxaan arkay isagii oo isbedelay oo wax fahmay dhibto halkay kaga socotana fahmay waxa weeyaan dadkeen waxa lagu tilmaamayaa waxaan jirin baa lagu tilmaamayaa cirkay wax ka soo dhaceen baa lagu oran ku garab joogana bamka ku dhigaya marka farmaajo wuxuu fahmay inuu masiibada ugu weyn ay kaga socoto Ismaaciil Umar buu fahmay wuxuu walaalkay wadankan ana madax ka anay ummadii Ilaahay bay ugu ogyihiin ana maamulay faraha laga baxbaa leeyahay wadankaaga hagaajisaa leeyahay nooda wadanka ma dayniyadii ma dabay doofarma daayir dabeecadiina ma daayay qurunkiisi deyn maayo waxa weeyaan inuu dhex bashaqsado doonaya Muqdisho وبلايي مصيبه ka wado umada madaxa isku wada galiyo lacag ku shubu doonaya waxa weeyaan markaasi tuugdiiday farmaajo waa taasi
waxaan leenahay marna ogolaan baan leenahay marnaba ogolaan farmaajo 20 qof xildhibaan 9 xildhibaan meesha noo jooga waxaan leenahay Ismaaciil Umar Geystena soo dhaafi oo kuwa liiska jadiidka farmaajo waa inuu dhaqaaqa baan leenahay kuwa kalena Ismaaciil Umar Geystena soo dhaafisid ee Soomaaliya dan aan u haynin ka shaqeynaya isaga u shaqeynaya inaga naga shaqeynaya soo dhaafiya baan leenahay dad Soomaaliya dan wada ayaa nagu soo ayaa maanta aad haysiin oo gacanta ku haysiin dadkaas siya baan leenahay kuraastaas maxay hayday siya baan leenahay marka waxa weeyaan sidoo ku diiday uu fiican yahay oo waxaan leenahay sida iskaga celin ninkan meelna iska saar hadii kale dawladda Soomaaliya ka cimayso sababtoo ah 30 sano 15 sano Soomaali bay siisay 15 sano Ismaaciil baa ku galgalanaya Soomaaliya 30 sano qasnayd waa sida waa inay ogaadaan dadku isaga ku galgashay isaga dhibaatada u geystay ninkani wanaag niima sii wado maalinta meel iskaga xidhin madaxweynuhu doonaa haro farmaajo ama mid kale baa hado meesha yimaadee madaxweynihii Soomaaliya gidaar iskaga xidhay walaaltinimadu waa halkeega walaaltinimada iyo jarnimadu waa halkeega oo wadad wada dhasho ilaahay nima kala kaxaynayo Soomaali waan wada nahay waan wada dhalanay ama ninku qabiilku doonaa hado ama muxuu dagoodi ahaado ama hawiye ahaado ama maxay hayday majeerteen ahaado ama maxay hayday ama garbuushaad wadad wada dhashay dadkan yaa nahay meelba ma kala tagayno waxa weeyaan wixii hoosaaneed ee la isku haystaa waa gooni waxa weeyaan tani talada wadankan nidaam baa jira nidaamkuna waa dawlad wixii walaalnimadu isku darsanayna waa leenahay laakiin inuu ogolaado madaxweynaha Soomaaliya inuu Ismaaciil Marqas ka dhex wado ma aha Soomaaliya ama farmaajo haato ama ku damba haato ka ogolaaday isaga waxba ahayn baba ummadda Soomaaliyeed hor socon kareenin sababtoo ah ninkan Ismaaciil Umar farba ku godonin cadow ku aweeyay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan oo dhan ba cadow ku yahay kii Itoobiya jooga ku ooyay kii Djibouti jooga ku ooyay kii Soomaaliya jooga ku ooyay mid aan la mid aan ku ooyay ma jiro marka wuxuu ummadda u hayo Soomaaliya u hayo ka madaxweynaha Muqdisho ayaan garanayn marka waxaan ku leeyahay waad ku fiican tahay farmaajo kuwad waan kugu taageersanahay anagu dadka reer Djibouti oo dhan way kugu taageersanayaan arinta ninka gidaarska ka xidh waxa arrimahan way ku soconayaan shaqadaadana waad qabsan doontaa farmaajo keligii ma madaxweynaha dambe Soomaaliya imanayna waxaan leenahay wardaad Ismaaciil Umar gidaarska ka xidhiin oo darimihiina wadatiin wax weyn soconayaan dadka reer Djibouti way diyaar bay yihiin aad baad u mahadsantahay xasan anagoo kaaga mahad celinaya bulshadana daawanaysan aan leenahay aad baad u mahadsantihiin kulleyba barnaamijka Sahan TV mar waliba waxaan ku daadihinaa inaan ummadda bulshada la wadaagno wax wanaagsan dadkana aan u iftiimino wixii iyaka ayna ogeen ama waxyaabo badan oo iyaka ka qarsoon iyaan bulshada baraha bulshada aan u soo bandhignaa mar waliba aan naahnaa meeshii roon rabbi baa og waxaan doonayaa xasanow inaan ku weydiiyo oo su'aashii ku sii socdo waxaad jirtaa aad iyo aad dadka reer Djibouti maanta waxay joogaan waqti fiican waxaan arkayaa amba ii muuqda amba dadkoo dhan iyo adigaba kuu muuqda isbedel aad iyo aad u fara badan baa yimiday dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisaba sideed u aragtaa marka reer Djibouti iyo waqtigii hore iyo maanta iyo Djibouti bulshada maanta may bislaatay bulshadu sidii hore may ka waroon tahay oo wax badan bay fahmeen mise halkii bay joogaan xasanow bal la wadaag bulshada horta dhalintu maanta waxa weeyaan dhalintu wax badan bay fahmeen Djibouti dadku wax badan bay fahmeen waxaad arkaysaa Ismaaciil isagiyo kaarka qaatada maxay dada ku haya ma aragtay waxa weeyaan madaxu maxay day garku ciir maxay fuqu ciirka u taagi jiray Ismaaciil Umar waagi hore iminkana waa kan arkaysaa weeyda ku hayay bisad yar oo qoyday u qayqay u niqniqda dabanaya waa ka dhaqaaqi karila waxa weeyaan waxa keenay taasi dhibta haysatay reer Djibouti waxa ahayd mucaaradka dhexdeeda ayuu ku darsaday dad mucaaradka dhexdeeda ayuu ku darsaday dad ayuu dad ku darsaday mucaaradka dhexdeeda dad ku darsaday ahayd jaanjaamiye oo dawqiya ayuu ku darsaday oo wareeriya oo jahmareeriya halganka iyo mucaaradka wareeriya ku dhex darsaday laakiin maanta waa la kala miirmayaa oo way socotaay waa ka arrimo way socdaan waa la kala miirmayaa dadku waxay arkaan dad badan oo isjiidanaya waxa la isku jiidanaya waxba kala miirmaya waa la kala miirmayaa waa la kala harayaa arrimuna way iska dhow yihiin marka dadkuna diyaar bay iska noqdeen muxuu ahaa marka waxa weeyaan dad badan baa soo qoray oo leh arrintii ka hadla Borel waan ka hadlaynaa maasantiin dad baa halkan soo qorqoray maasantiin waxa weeyaan marka xasan oo dadku waxa soo jeedaan hadda way diyaar way yihiin dadku waan dhaqaajin karaynaa maanta oo waan dhaqaajin karaynaa meeshana waan dhaafin karaynaa ka cabsanina leedahay aad baad u mahadsantahay xasan barnaamijkii waan ku sii soconaynaa hadda waxaan galaynaa wixii aad iyo aad maaragtay bulshadu ay sugaysay ay dadkuna ay u haraanaayeen
kolley reer jabuuti meel wali joogaan waxay jecel yihiin xaqiiqda in laisdul taago bulshadana lala wadaago xase waxaan galaynaa arrimihii arrimihii waxaan galaynaa waqtiyadii hore ee dalka jabuuti ka dhacay ee arrintii borel sideed u aragtaa xasan arrintaasi ilaa maanta dowladda faransiisku waxay ku andacoonaysaa ama maaragta dacwadaasi gabadhii amba xaaskiisii borel inuu dacwadii ay socoto faransiiskuna mar waliba uu dacwadii wato in cumar gelina uu kolleyba arrimaha borel iyo maaragtay haddii lasoo hadal qaado uuna seexan una arrintaa ka xumaado oo argagixiso ay ku noqoto ilaan argagixiso qofku markuu argagixiso yahay ee argagixiso la geliyo u yaabaa marka arrintaas seed u aragtaa xasanow bulshadana maxaad la wadaagaysaa arrintaas waa arrin xasaasiya oo dadka bulshada reer jabuuti meel walay joogaan ay jecel yihiin waqtiga in cumar hawshiisa la dhammaynayo ee arrintaas la gudagalayo arrintaas in badan bay soo jiitantay laakiinse waxay u egtahay inay hirgalaysaan u malaynaya haddeed oo ay wax ka dhaqaaqayaan waxaan jeclaan lahaana inaan bal horta la dhegaysano waxyaabihii ay ka qoreen faransiisku ay ka yidhaahdeen inaan bal la dhegaysano arrinta ay dadku nala dhegaystaan ayaan jeclaan inkastoo faransiis ku hadlayo oo arrintan ay ku hadlaysan inay iska raalli noqdaan baan jeclaan lahaa inamada farsamada hadday suurtagal tahay inay arrintaa bal videoga noo sii radiyaan baan jeclaa. Octobre 1995 à Djibouti. Le corps d'un homme en partie carbonisé est découvert au pied de cette falaise. Ce cadavre est celui d'un juge français en mission de coopération à Djibouti. Officiellement, Bernard Borel se serait suicidé. Juin 2002, le corps de Bernard Borel est exhumé pour la deuxième fois pour autopsie. Après 7 années d'enquête par 5 juges d'instruction successifs, la justice doute encore. Pourtant, la thèse du suicide semblait acquise à Djibouti comme en France. Face au secret qui semble entourer cette mort, une veuve et ses 2 enfants. Vous savez, l'avenir d'enfant, ça ne peut pas se construire sur du secret. Et là, on leur a enlevé à 5 ans et 8 ans un père et une histoire. Et donc un avenir. Dans sa vie, Bernard Borel avait 2 passions, sa famille et la justice. En 1980, il sort major de sa promotion à l'École nationale de la magistrature. Bernard Borel a la réputation d'être un homme droit et intègre. En 1994, il quitte la France pour Djibouti avec sa famille. Il a 39 ans. Considéré comme un lieu stratégique aux portes de la mer Rouge, l'ancienne colonie française, indépendante depuis 25 ans, est restée sous influence. À l'époque, plus de 3000 soldats sont basés à Djibouti. Ce petit pays est sous perfusion. Le chômage concerne 90% de la population et c'est la France qui fait et défait les régimes politiques en place. En 1994, l'homme fort du pays se nomme Ismaël Omar Guelleh. Il est chef de cabinet du président de la République de Djibouti. Envoyé en mission de coopération par la France, Bernard Borel est conseiller auprès du ministre djiboutien de la Justice. Officiellement, il travaille à la réforme du code pénal et du code civil de Djibouti. C'est ce bureau que le magistrat français retrouvait tous les jours. Le 19 octobre 1995, 1 an et demi après son arrivée, Bernard Borel est découvert mort dans des rochers à 80 km de Djibouti. C'est ici que le magistrat français se serait suicidé en s'immolant par le feu. Au cours de notre enquête, nous nous sommes rendus sur place pour comprendre. Imaginant, en plein jour, les derniers instants de la vie de Bernard Borel, qui, selon la version officielle, est mort en pleine nuit. Bon là déjà, tu vois, on est obligé de s'asseoir. C'est pas possible. Donc il se met l'essence en haut, et puis dans la nuit noire, il fait ce que personne n'a pu faire lorsque nous y sommes allés cette année, c'est-à-dire il descend la pique, couvert d'essence, avec son briquet, parce qu'il fallait bien qu'il s'allume après, hein. Et puis là, il a perdu des trucs, mais pas le briquet, hein. Et puis, il s'est pas fait mal, hein. Il est descendu, il a fait 17 mètres depuis la pique. Et puis donc là, il se met le feu au bas de la pique,
Et puis dans une fuite instinctive de douleur, sous l'effet du feu, ils auraient couru dans la pente pour tomber là où on l'a trouvé, recroquevillé en chêne-fusil, à l'envers de la pente d'ailleurs, calé par des pierres. Voilà. Aucune reconstitution de la mort présumée de Bernard Borel n'a eu lieu la nuit, trop dangereux. Lorsqu'on va sur place, lorsqu'on voit la configuration des lieux, notre première réaction, ça a été de nous regarder, de voir les lieux, et ensuite de nous regarder en disant mais franchement, on s'est foutu de nous. Outre le jerrycan, sur le haut de la pique, on retrouvera les chaussures un peu plus bas. Car Bernard Borel serait descendu dans la nuit noire, les pieds nus. Or, curieusement, à la découverte du cadavre, ses pieds sont intacts. Pas de lésion non plus sur le reste du corps, sauf une blessure à une jambe. Blessure post-mortem, diront les légistes. La thèse du suicide, lorsqu'on va sur place, elle est invraisemblable. Mais ce qui est encore plus invraisemblable, c'est qu'on est tenté de nous la faire avaler. Dès la découverte du corps de Bernard Borel, tout semble s'accélérer. L'absence de suie, de la même manière pour un noyé, l'absence d'eau dans les poumons, l'absence de suie dans les bronches, les voies aériennes supérieures démontrent que mon mari n'est pas mort par le feu. Et qu'il était mort avant. Qu'il était mort avant, qu'on a fait brûler son corps. Un ponte de la médecine légale, le professeur Lazzarini, a étudié le rapport d'autopsie. Selon lui, il est évident que Bernard Borel n'a pas respiré dans le feu. L'absence totale de produits de carbonisation permet de rejeter la notion d'une carbonisation vitale. Ce qui veut donc dire qu'il y a eu l'intervention d'un tiers et donc vraisemblablement une mort violente par un tiers. Et qu'il n'y a pas eu suicide. Et non. Elisabeth Borel est donc persuadée que son mari a été tué. Mais sa conviction et les rapports d'autopsie ne suffisent pas. Le suicide reste la thèse officielle. À Toulouse, l'instruction n'avance pas. Elisabeth Borel demande alors le dépaysement du dossier à Paris. 2 juges d'instruction à l'excellente réputation sont chargés du dossier Borel. Marie-Paul Moracchini, tout d'abord, très vite rejointe par Roger Leloir. À la fin de cette même année 99, les 2 magistrats parisiens s'apprêtent à conclure au suicide quand survient un coup de théâtre. Un nouveau témoin, un Djiboutien réfugié en Belgique, se fait connaître. À l'époque de la mort de Bernard Borel, Mohamed Aloumekani est officier chargé de la sécurité au palais présidentiel à Djibouti. Le 19 octobre 1995, le corps de Bernard Borel vient d'être découvert. Aloumekani se trouve dans les jardins du palais, en compagnie du chef de cabinet de la présidence, Ismaël Omar Guelleh. 2 véhicules 4x4 sont rentrés dans l'enceinte du palais présidentiel par la porte principale. Ils ont traversé la chaîne et ils sont rentrés sous le palais présidentiel, sous le préau, pour ressortir de l'autre côté du jardin, où le chef des cabinets de l'époque les attendait en ma compagnie. Alors, il y avait le chef de corps de la gendarmerie, il y avait le chef de la SDS, le renseignement djiboutien, il y avait des personnes étrangères, il y avait un ressortissant français. C'est des personnes étrangères, ce sont des personnes qui étaient censées être en prison, des terroristes incarcérés. Et ils étaient donc là, accompagnant donc les autorités djiboutiennes. Un officier de gendarmerie, un homme d'affaires français, un chef des services secrets, aux côtés de 2 terroristes sortis de leur cellule, l'équipage est étonnant. Mais ce que va entendre Aloumekani est encore plus stupéfiant. Le terroriste djiboutien qui s'est exprimé, il a rendu compte directement au président en lui disant que le juge Funeur est mort et qu'il n'y a plus de traces. Le juge Funeur. Le juge Funeur. En septembre dernier, le chef des services secrets djiboutiens, Hassan Saïd, nous reçoit au palais présidentiel à Djibouti. Dans son témoignage, Mohamed Aloumekani affirme qu'Hassan Saïd a participé à cette discussion au cours de laquelle a été évoquée l'élimination du juge Funeur. Jusqu'ici, les autorités djiboutiennes étaient catégoriques, cette discussion n'a jamais eu lieu. Surprise aujourd'hui, pendant qu'il nous fait visiter le palais, Hassan Saïd nous dit le contraire. La conversation avait eu lieu là?
Non, Non. La conversation a eu dans une salle qui se trouve à l'intérieur. On va rentrer là. D'accord. L'ancien bureau du chef du cabinet. D'accord. Et Hassan Saïd d'aller plus loin dans la confidence en nous désignant l'endroit où, selon lui, se trouvait Mohamed Aloumekani lors de cette fameuse discussion. À l'époque, c'était à Rome. Donc lui, il se trouvait derrière Cette grille. cette grille. D'accord. Et la conversation aurait eu lieu ici. Ici, voilà. D'accord. Cet aveu involontaire est un élément nouveau. Le chef du renseignement djiboutien confirme qu'il y a bien eu une conversation dans ce palais à propos de la mort du juge Borel le 19 octobre 1995. Le témoignage d'Aloumekani, qui remet en cause la thèse du suicide, n'est pas unique. Plusieurs personnes ont vu le juge quelques heures avant sa mort. Nous avons reconstitué le parcours emprunté par Bernard Borel le 18 octobre 1995. Ce jour-là, il quitte son appartement vers 16 h à bord de son 4x4. Il s'arrête à la station mobile au centre de Djibouti. Un pompiste l'a vu. Problème, après avoir témoigné dans le dossier, ce pompiste aurait disparu. Vous connaissez monsieur Abdo Hassan Abdallah? Vous le connaissez? Et il ne travaille plus ici? Il travaille plus ici, mais il travaille dans une société qui est là-bas. Bonjour. Je cherche Abdo Hassan Abdallah. À moi. C'est vous? Oui. Bonjour. Bonjour. L'ancien pompiste est donc bien vivant et nous le retrouvons chez lui le soir même. Il nous apprend qu'il a été entendu par la police djiboutienne mais que son témoignage n'a jamais été pris au sérieux. Pourtant, il est officiellement le dernier à avoir vu Bernard Borel vivant. Il vient en 4 heures, il descend les voitures, et il ouvre derrière, il prend les jerrycans. Et il m'a dit, donne-moi 10 000 francs d'essence. Je donne 1000 francs d'essence. Quand les Français ils descendent, ils parlent, ils rigolent comme ça. Mais lui, il descend, il est comme les fâchés comme ça. Ah oui, il avait l'air très sérieux. Très sérieux. Moi, j'ai dit peut-être, il y a un problème à lui. Alors, est-ce qu'il était seul dans la voiture? Non, il n'est pas seul avec un Français. Il y avait un autre Français à côté de lui? Oui, un Français. Que vous ne connaissiez pas? Non, lui quand même, je ne connais pas. Je n'ai pas vu bien la figure. Bernard Borel quitte donc Djibouti avec un jerrycan d'essence à peine rempli, ce qui est curieux, mais il se dirige vers la mort en compagnie d'un homme, ce qui est encore plus étrange, étant entendu qu'on se suicide rarement devant témoins. Bernard Borel et ce passager inconnu ont obligatoirement franchi 2 postes de contrôle. Le premier est français. En 1995, ce poste se trouve dans ce village de Ouéa et il est tenu par la Légion étrangère. Autre poste, 15 km plus loin. Depuis 1991, des militaires djiboutiens contrôlaient tous les véhicules et consignaient ces passages sur un registre. Nous sommes ici au PK 51. Des habitants de ce village se souviennent de ces contrôles. Les gendarmes étaient là normalement? Non. Et ils notaient sur un cahier tous les gens qui passaient, c'est ça? Il n'y avait pas de gendarmes, il y avait des militaires avant. Des militaires avant. Et on mettait le numéro d'immatriculation de la voiture? C'est ça. Voilà. Mais c'était pour les Djiboutiens et les Français? Ou que pour les Français? Pour tout le monde? Pour tous les gens qui passaient? Pour tout tourisme. Oui, d'accord. Toute personne qui passait par là. D'accord. Dans son témoignage, Aloumekani raconte que, menant sa propre enquête, il avait interrogé les 2 militaires qui ont contrôlé Bernard Borel le 18 octobre 1995. Leur témoignage est essentiel. Selon Aloumekani, les 2 soldats lui ont confirmé le passage de Bernard Borel et de son passager, suivi d'une autre voiture avec 2 hommes à bord. Quelques heures plus tard, 3 hommes à bord d'un seul véhicule repassent dans le sens contraire, direction Djibouti. Bernard Borel n'est pas parmi eux. Les juges français ne retrouveront ni les 3 passagers de ce véhicule, ni les soldats qui les ont contrôlés. Quant aux registres, qu'ils soient français ou djiboutiens, ils sont restés introuvables. D'après les 2 soldats du checkpoint djiboutien, c'est le colonel Mahadi, chef de corps de la gendarmerie, qui, le jour même de la mort du juge, a récupéré le registre sur lequel ont été consignés les passages des véhicules. Un officier que Mohamed Aloumekani verra quelques heures plus tard dans les jardins du palais présidentiel. Bonjour. Lors de notre séjour à Djibouti, il nous a été impossible d'approcher le colonel Mahadi. Travaille le colonel Mahadi.
waayahay halkaasuu noogu dhamaaday fideoyadii aad iyo aad maaragtay u xiisa lahaa waqtiyadii taariikhdii na soo maray maaragta waqtiyadii aad iyo aad dadka reer Djibouti ay argagixisada ay galeen Borel arrintiisiina ay ahayd aad iyo aad baan uga xumahay Djibouti wixii ka dhaca haddii ay qof dibadda oo cad hadday tahay iyo hadday tahay qof dalka Djibouti u dhashayba dadka waxaa lagu leenayaa sidii maaragtay xawayaankii baa loo laayaa marka arrintaas xasanow sideed u aragtaa annagoo barnaamijkii haddii tole aan soo gabagabeynayno dadkuna ay inay kaa bogtaan arrintaasina aad u dul joogsatid baan rabnaa oon jecelahay inaad ummadda aad si fiican ugu macnaysay waa sax weeyaan muxuu ahaa dad baa ii soo qoraya xasan oo sugaan odhanayaa waan nin wadaynaa qoraal bay dad badan halkan igu soo qorayaan aad daqiiqadii barqs yar suga baan leenahay arrimo way socdaan waxa weeyaan arrintan horta marka xaakinkani la yidhaahdo Bernard Borel waa xaakin dalka Djibouti u yimiday loo soo diray oo Faransiiska u dhashay loo soo diray Djibouti inuu ka caawiyo xagga xeerarka maxkamadda uu ka caawiyo loo soo diray ninkaasi waxa lagu dilay Djibouti 19kii bishii tobanaad 1995 ama 95 ayaa Djibouti lagu dilay oo meel la yiraahdo maxay ahayd gubatel kharaab la geeyay oo lagu dilay ninkaasi waa nin tacliintiisa ka bartay Faransiiska oo ka soo baxay maxay ahayd iskoolada sarsare ee xeerarka laga barto ee Faransiiska ka soo baxay marka kadib waxa ninkaasi loo doortay inuu noqdo ninkii Faransiiska oo ay weydiisatay dawladda Djibouti in lagu caawiyo nin aqoon u leh xeerkan maxay ahayd penalka la yiraahdo dambiyada waaweyn dadku ay galaan inuu ka caawiyo oo dib loo hagaajinayo marka ninka baa loo soo diray ninkaasi markuu yimid Djibouti wasaaradda cadaaladda ayuu fadhiyay uu kala shaqeynayay wasiirka iyo maamulka cadaaladdu kala shaqeynayay sidii xeerka loo jadiidin lahaa markaas 93kii bay ahayd isagoo waxa loo ogolaaday inuu Djibouti tago 93kii bay dawladda Faransiiska u sheegtay 94kiina uu yimid Djibouti isagoo sanad uun jooga Djibouti ayaa ninka la dilay sida loo sheegay videogaasi ku hadlayay afka Faransiiska ku hadlayay ku baxayna lagu sameeyayna uu sheegayo waxa la tagay meesha baa meedkiisa laga helay isagoo la gubay dawladda Djibouti waxay ku sheegtay ninkaasi inuu isdilay isagoo isgubay laakiin waxa cajiib ah nin maxay isgubay laakiinse laga waayay wax daba gudihiisa laga waayay qofku markuu isgubo uu nool yahay uu neefsadaa neef buu qaataa neefta waxa ku jira qiiqi dabka ka baxay gubayuu qaataa qofku hore uma dhinto ta labaad meeshuu ka dhacay shilowga inta leegu ka dhacay ee buurta inta leegu ka dhacay buurta nabur waa laga waayay dhagaxdaasi ay u geysteen lugihiisu waa nadiif waxay ka dhigan tahay ninkaasi inta la dilay oo madaxa wax laga dhiftay iyo buurta hoosteeda la geeyo lagu gubay yahay dhakhtaradii soo saareen dambigaasna ninkii ka dambeeyay wuxuu ahaa Ismaaciil Cumar haddaba waxa weeyaan waxa meesha taalaay waxa weeyaan maxaa ku kalifay Ismaaciil Cumar ninka ay dawladda Faransiiska noo soo dirtay inuu dilo weeyaan taa ka hor waxaan oranaynaa arrintaas Ismaaciil Cumar oo ku sheegaya ninka inuu isdilay iyo rag Faransiis oo lacag u shubay Ismaaciil Cumar uu leeyahay arrinta la qariyo una wado oo corruption la galay arrintiina la isku dayayna la qariyo ayuu soo baxay markhaatigaas oo Maxamed Saalax Al-Qumeyqani ninka la yiraahdo oo jandaranka Djibouti ahaanayay ninkaas oo reer Djibouti iminkana ku nool magaalada Belgium ee caasimada Brussels ninkaasi 99kii December 99 bishii 12 buu Belgium iska dhiib u dagay halka buu markhaati ka jeediyay uu sheegay inuu arrinkaasi uu hadalladaas iminka uu Faransiiska ku sheegay uu maqlayay oo dhagiisa uu ku maqlayay madaxtooyada dhexdeeda Ismaaciil Cumar oo ku qaabilay ninkii maxay ahayd la odhanayay qaraxa sameeyay ee Amuudi la odhanayay muxuu ahaa Xamuudi la odhanayay qaraxa ka sameeyay ee qarxiyay meeshii maxay ahayd xasuusi xamuuda xasan Cadwaani ninkii la odhanayay qaraxa ka sameeyay Cadwaani ninkii qaraxa ka sameeyay story maqaaxidii la odhanayay ka sameeyay 87 ninkaasi inuu Ismaaciil la joogay guriga madaxtooyada la joogay daarada
iyo ninka kale la yiraahdo Allah u naxariistay isna la yiraahdo ii sheeg muxuu ahaa Cawaale Rooble oo isna lagaga daba tagay Ethiopia lagu dilay uu la joogay ninka jandaranka haystee Mahdi Sheekh Muuse la yiraahdo iyo Xasan Saciid inay la joogeen halkaana loogu sheegay in jiiskii xaakinkii la dilay oo xaakinkaasi dhintay in Ismaaciil Umar laga wargeliyay baan maqlayay buu yiri uu marxaatiga ku furay wixiina sidii uu sheegay bay ku dhamaatay ku cadaatay haddaba waxa isweydiinay iyadoo waqtiga Xasan oo saad sheegtay waqtigii soo gaabanayaan ku qasbanay inaan soo gaabino arintani iyadoo jeclayn inaan aad u faahfaahino maxaa ku qasbay inuu Ismaaciil Umar uu dilo ninkaasi xaakinka ay dawladda Faransiisku noo soo dirtay inuu naga caawiyo xagga xeerarka horumarinteeda waxa ku kalifay waxay ahayd ninkani markuu yimiday maxay ahayd wasaaradda cadaaladda wuxuu la kulmay dacwad meel taalay oona aanan dhamaystirnayn waxa weeyaan qaraxii laga geystay maqaaxidii la oranayay Café de Paris 27 ilaa 8 waxay habeenkii 28 September 27 September bay 27 bisha 9 1990 qarax baa laga geystay maqaaxi ku taala Djibouti oo Café de Paris la yiraahdo oo oday saaq leeyahay qaraxana waxa lagu eedeeyay beesha Gadabuursi rag baa lagu eedeeyay qaraxaasi waxa lagu tuuray bambo waxa ku dhintay wiil yar oo Faransiis ah 17 kale qofna way ku dhaawacmeen oo waliba 15 Faransiisiin baa ku dhaawacmay labana ay yihiin dadkii reer Djibouti shaqaalaha meesha baa ku dhaawacmay ilmaha yar ee Faransiiskana uu ku dhintay bambadaasi imika markaan waqtiyaal dambe anagu baaritaan sameynay mar dhaweyd waxaan soo ogaanay qaraxaasi wixii geystay wuxuu ahaa al-Ittihad rag al-Ittihad kamid ah Ismaaciil Umar dursaday buu ahaa laakiin waqtigaasi waxa lagu eedeeyay beesha Gadabuursi oo rag badan oo beesha Gadabuursi oo Kaarteseng laga qabtay oo jirdil lagu sameeyay baa jiray nabro xoog la gaarsiiyay marka waxa weeyaan arrintan Ismaaciil wuxuu uga jeeday uga golaa waxay ahayd iyo Xasan Guleed waxa uga golaayeen argoosasho ahayd oo iyagu siyaasadooda way wateen qaraxan dambay kala haayeen dambay ka wateen dantay ka wataana waxa uu raacsanaa xagga Soomaaliya iyay isku dirreen reerka Gadabuursi iyo kilinka Ciise kamid mamaasan la yiraahdo oo kamid yahay Ismaaciil Umar ka soo jeedo ee beesha Ciise kamid ah iyo halka isku dirreen reerka Ismaaciil Umar dad kamid ah halka lagu laayay Soomaaliya si looga argoosta iyagana Djibouti dadkan oo xaafadooda iska fadhiyo waxba geysan oo qaraxna geysan la soo qabtay oo jiddi loogu sameeyay kaarsan inta laga soo ururiyay markaasi waxay argoosi bay wuxuu Ismaaciil Umar dusha uga saaray Gadabuursi si uu u yiraahdana dadkan uga dhaadhiciyo waqtiga xiisadii Soomaaliland baa jirtay si uga dhaadhiciyo meesha isaaq baa laga Gadabuursi baa qarxiyo way u cadaysan yihiin oo dilkii dila ka dhacay ee sanamtu ay geysatay iyo argoosanayaan Gadabuursi waxaan kaasina dadka laga dhaadhiciyo laakiin si isaga ayaa argoosanaya Xasan Guleed baa argoosanaya sidaa bay ahayd meelka marka waxay u isticmaaleen meesha qarax geena al-Ittihad buu ahaa sidaan soo helnay wararka marka jiilkan Bernard Borrell xaakinka Bernard Borrell wuxuu isagu gaaray baaritaankii uu galay wuxuu ku dhawaaday inuu gacanta ku dhigo cidii qaraxan ka dambeysay ogaado oo al-Ittihad ahayd inuu markaa Ismaaciil Umar maxay ahayd uu la shaqaysanay ururada argagixisada iyo soo ogaa iyo ku dhawaaday ninkaasi inuu ogaado marka in la iska khaarajiyay ninka oo la iska dilo sidaa buuna Ismaaciil Umar ninka uu dilay marka waxaan leenahay dad baa warar waxaan soo gaaray oranaya inay dad gacanta ku hayaan maanta arrimo Djibouti waxaan leenahay dadka reer Djibouti ee arrimaha gacanta ku hay dad cabsanaya inay jiraan oo qaarna dibadda joogaan qaarna gudaha joogaan arrinta ku saabsanna ay gacanta ku hayaan wax badan ka bedeli karta waxaan leenahay cabsooda inigu cabsoonaysiin annagana siiya ka cabsoonina cidniga daba iman doonto ma jirto cidna ogaan doonto ma jirto ama WhatsApp kayaga noo soo dhiga ama maxay ahayd halkan San TV noo soo dhiga meesha doontiin noo soo dhiga dad caynkaas ayaa nalaga wargeliyay waxaan leenahay dadka reer Djibouti maxay ahayd cidii wax ka haysa arrintaasi soo tabiya diyaar baa wanaga u sii tabinayna cidii ay khuseynaysay haddaad wax ka haysiin arrinta dad baan loo sheegay dibadda jooga iyo gudaha jooga in arrinta wax ka hayaan waxyaabo waliba muhiim ah ay ka hayaan cabsoonina waqtigii banaanka wax kasta la soo dhigay jooga ninkani way dhamaatay ka cabsoonina Ismaaciil Umar soconaya weligii ama sabatiya gabatiya wuxuu doono warqada u dhiibo wuxuu doono u dhiibo ninkan uu soconaya anaa huba waxba cabsoonina baan leeyahay soo daaya anaga noo soo dhiiba inagu ina nili ogaanin annaga cidna soo gaaraysa ma jirto cid wax naga qaadi karaysa ma jirto berina markay arrimuhu isku duba dhacaan wax annaga dhaafsan baa meesha yaala sida ay sheegan dadka reer Djibouti talada Djibouti reer Djibouti gacanta kuma hayaan waa inaad fahamtiin dadka reer Djibouti waxa weeyaan dana annaga dhaafsan baa meesha yaalo oo adduunka danahan inaan ka hortagno jeedna maaha waxa weeyaan inaan si degan u soconno markaas waqtiga uu arrimuhu ay soo dhamaadaan fiirigan isku afuufiday waan arkaynaa awoodda uu ku joogo meesha Ismaaciil Umar waan arkaynaa uu iska isagii afartiisa maxay hayday ilmaadareedu wato bahfurlade Yubugo ma geynina magaalada Yubugo la yiraahdo Cote d'Ivoire bay tagi doonaan halka baa la dejin doonaa ama sidii waxay daafaha wareegi doonaan
reer bani israa'iil ba 5,000 daafa adduunka wareegi doonaan waxa weeyaan inagu waxaan leeyahay reer Jabuuti waxaad soo tabin karaysiin loo soo tabiya annaga cabsoonina cidna waan karta inaad waxna siiseen ma jirto maxay ahayd taana ragga haya ee la sheegay alla gaabsanina soo daayaan leenahay aan cidni ogaan karaysana ma jirto cidni soo daba galaysana ma jirto annaga ne ballan qaadayna waana ne dhaaranayna waxa la tilmaamay rag magacdooda iyo ma soo qaaday iyo meel ay joogaan soo daayay baan leeyahay cabsoonina annaga ne ballan qaadayna taa booreel arintaad ka haysiin soo daayay waad mahadsantahay xasan aad baad u mahadsantihiin xasan anagoo soo gabagabeynayna barnaamijkii soo xidhaydhnaa waxaan leenahay intana daawanaysa intana daawan doonta waxaad nagala soconaytiin barta facebooka iyo barta youtube-ka waxaan leeyahay xasan oo barnaamijkii anagoo soo xidhaynaa bulshadana daawanaysana aan leenahay aad baad u mahadsantihiin iyo intana daawan doontaba maadaan nahay bahda sahan t v-ba mar kaste waan u heeganahay dhalinyarada jabuuti ee dhibta lagu hayo ee shaqa abuurka beenta loo sheegana iyo kana waxaan leenahay dadaala hawshiina iyo dalka iyo dhaqaalaha ininka iskale maamulka dambana ininkuu inii soo socdaa ininkaana dalka maamuli doona xasan maxaa kusoo gabagabeynaysaa barnaamijkii waa soo xidhayaa dadkana maxaad u diraysaa fariin waxaan u dirayaa dadka cabsoonina waxaan leenahay cabsoonina waqti dhow waad yaabi doontiin inigu waad isweydiin doontiin war wixii aan intaana dul fadhiyay ee waxaan u haysanay ma waxan buu ahaa baad iniga odhan doona Ismaaciil Cumar Saddeq yar baan isku dhaafin doonaa diyaar noqda dadka reer Jabuuti maalinta fiidhiga la isku afuufana waa la isku balaaran doonaa taana ay loobina inaad noo soo dirtiin raggaas haddayna maqlayaan arrintaa gacanta ku haya booreelna noo soo dira cadaymaha hadaysiin ee la gabanaysiin ilaa 20 sano maanta soo daaya anaga ne diyaara waxa kale aan ku darayaa liiska maxay ahayd ofisiyada ciidanka ku jira maxay ahayd Ismaaciil Cumar la haybta ana soo dira waan loo baahan yahay facebookana waan soo dhigaynaa si ummadu diyaar ay ugu noqoto maalintaas raggaasi hadday ka hor yimaadaan isbedelka in dariiqada lagu laayo anu tubinana adduunkana waana laga doonayaa qalbiga midoobay cid kastana way doonaysaa in badanna waa la hayaa inta kalena waan ka daba geynaa soo waranayna waad salaamantiin dadkan dhageysanayo wax laga cabsoodaana ma jiro ninkan uu dhaafayana ni ballan qaadaya wax warqado ama warqad kondaatiirkiisu geeyay iyo warqad buu sabatay iyo gabati iyo u dhiibay waxa ku daalina waxaas ciyaal shafaaca ku daalina sheekadooda wana uu dhaafaya ninkan waad salaamantiin dadka reer Jabuuti intii dhageysanay waad mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنا هاي برنامجك أنت نلدا دهني سعودتك أي صور هذا وحنا هاي أديات بدوم هسنتين بلشدنا داونا سا أنت نداون دوتنا وحنا هاي نول كلنتي هبين ونكسن goob walba iyo goob kastaba ku xidhna uu telefishinka caalamiga ee Sahan TV uguna kaalay warar hufan Sahan TV dadka iskale halkani waa telefishinka caalamiga ee Sahan TV